colaadihii ka dhalin jiray waxyaabaha Soomaalidu ama kheyraad hay isku qabsato ama wax kale oo ficilo kale ku saabsan yacni xagga akhlaaqda iyo dad wax lagu sameeyo ka dhalin jiray arrintan aad ay ugu fog tahay waxaan soo gaaray warar sheegaya in 2 maalmood gudahood dadka dhintay ay 100 ku dhow yihiin kuwa dhaawacmana ay 100 iyo ka badan yihiin arrintaas arrin la aqbali kara maahan arrin diina maahan arrin dhaqan maahan arrin caado Soomaaliyeed maaha waxaan walaalaha ugu baaqaynaa arrintaas inay joojiyaan inaan baaqayna ku wajahno dareenkeena walaaltinimo aan uga danqanayna dadkaas walaalaha ay ku dagaalamaya meeshaas inaan ugu baaqno inay dagaalkaas walaaltinimo ay joojiyaan dagaalkaas waxba soo kordhimayo wiil baa ku dhintay wiil ku dhalan maayo Soomaaliya dagaal way isaga soo daashay maantana waxay aad xilligii aan moodayna inay ka gudubto in qabiil la isu dilo waxaan si islaamnimo ah odaynimo ah dhaqan ah ehelnimo qaraabanimo u soo jeedinaynaa dadka walaalaheena inay dagaalka si degdeg ku joojiyaan waxaana ka codsanaynaa salaadiinta garaadyada iyo cuqaasha meesha joogto waan la soconaa inay ku baxeen hadda ka horna ay nabad dhex dhigeen laakiin nabadii aysan xag rabaani ka hirgelin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nasteexa dhex dhigo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qulubtooda isu samo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qifladda ummadda ka saaro waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu ummaddaas isku baabi'iso walaalaha ehelka iyo qaraabada ah inuu nasteexa dhex dhigo meeshan waxaan isugu nimaday walaalahayna Soomaaliyeed haddii la yiraahdo dhibaatada haysato dadka walaalaha ah annagu waxaan ka koobanahay duubabkii koonfurta Soomaaliya kuma kala maqrin maanta waxaana diyaar u nahay haddii la yiraahdo inaan goobta naftigeeda aan tagno oon haddii la yiraahdo taladayna iyo tusaaladayna aan ka jeedina ayaan maanta ku faataxaysanay walaalahayna waxaan salaadiinta meesha jirtaan warka sugaynaa haddii warna soo siiyaan saacada gudahooda ayaan idinku imaahaynaa waxaana idin leenahay ilaahay dhibka haydaga qaado ilaahay shimbira idigu kala dhaxrida dad walaalaada aad ugu dhaxaadiya allaha shimbir fayaw allah idin dhaxmar siiyo waxaan idin leeyahay shaydaanka iska rajiimiya waa shaydaan waxa isku diraayo dad walaala oo dhinac iskala soo jeedo isku habari odaya inay islaayaan maalin walba xaq ma ahan